dalka Hindiya gobolka waqooyi bari Assam ayaa waxa uu yahay meelaha ugu badan ee shaaha laga beero caalamka laakiin shaqaalihii shaaha gurayay waxa la soo gudboonaatay halis cusub markay sii durkaan beeraha shaahuba ee ay kaynta sii galaanba waxa la isku dhacayaa maroodiga halkaasi ku nool oo dad badan ku laayay beerahaasi 10 sanadood ee ugu dambeeyay Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa eegaya maroodiga Assam caleentan shaaha ee dumarkan ay gurayaan waxa loo beecgeyn doonaa suuqyada caalamka waa qayb qurxoon oo dunida ka mid ah laakiin halisteeda leh in ku dhow 800 oo qof ayaa maroodiyaashu ay ku dileen Assam 10 sano la soo dhaafay Mariam Karkita waxa uga dhintay bishii Oktoobar gabadheeda oo 26 jir ahayd hamara larki ka saat baad ka qarn binaysa labada dhinac ee beertaba deer ayaa ku wareegsanaa sidaa daraaddeed gabadhaydu ma aanay baxsan karin fursad aan ku sagootiyo ma helin xitaa ma arki karin markii ay weli noolayd madaxda dawladda ayaa sheegaya in beeralayda yaryar ay si sharci darro ah u qaadanayaan dhulka kaymaha laakiin hogaamiyahan deegaanka ayaa sheegaya in shirkado waaweyn ay ku jiraan sidaan u aragnay iyo sida ururkayagu 30% ilaa 40 ayaa sharikadaha shaaha beera ku soo durkeen laakiin ururada matala shirkadaha shaaha ee India waa ay diideen arrintan waxay sheegayaan in aanay kaymahaasi ku xadgudbin madaxa kaynta Ural Gudi ayaa sheegaya in aanay waxba gacanta ku hayn oo beeralayda shaahu ay la wareegeen kayntii oo dhan तो अभी बाद में जो हुआ है तो population cunto iyo biyo badan ayuu maroodigu haystay balse mar dambe oo ay dadku kordheen ayay meelahan beerista shaaha ka bilaabatay maadaama uusan maroodigu cunin caleenta shaaha wuxuu bilaabay in uu tuulooyinka galo dhibaatadana saas ayay ku timid गांव आता है तो गांव में थूक जाता है dawladdu waxa ay sheegtay in hadda dhul ay soo celisay kaasi oo sharci darro loogu beerayay caleenta shaaha waa tallaabo yar laakiin arrinta muhiimka ay waxay tahay intee ayay wada noolaan karaan dadka iyo maroodiyayaashu